wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Somaliland uu weheliye agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ayaa maanta hor yimid guddida dhaqaalaha ee aqalka golaha wakiilada Somaliland. Kulankani ayaa markii uu soo dhamaaday waxa faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii laga wada hadlay intii uu socday gudoomiyaha guddida dhaqaalaha ee aqalka golaha wakiilada Somaliland iyo wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Somaliland. oo runtii ka horeeyay wasiirka caafimaadka ka horeeyay wasiirkan iyo wasiirka hadda aan wada joogno wasiirkii shaqada iyo arrimaha bulshada waxa kulanku u daaranaa sidaan soo eegi lahayn miisaaniyadii 2022 iyo miisaaniyadda soo socota 2023 runtii si wacan baan wax soo weydiinay si wanaagsan bay noogu warrameen runtii oo faahfaahin bay naga siiyeen wasaaradda miisaaniyaddooda aad baan ugu mahadcelinay wasiirka iyo agaasimaha tiimka la socday maadaama aanu nahay labaduba laba gole oo qaranka Somaliland una adeega bulshada Somaliland shaqadii jirtay iyo shaqo maalmeedkii jiray bay ka mid ahayd arrimo ku saabsan miisaaniyaddaanu ka wada hadalnay waanuna dhamaysanay guddida waysa soo afgaranay waxayna weydiiyeenna si hufan ayaanu uga jawaabnay wallahi adeerto waxa fiican de su'aashaad weydiinaysa inaad hubanti u haysid oo aanay su'aal iska dhaca ahayn waxa weeye wasaaraddu waxay ka mas'uul tahay dagalayaasha kaliya ka mas'uul ah naafada qaranka ka mas'uul tahay waxay leedahay waaxda naafada horumarinta qaranka wasaaraddu waxay u adeegtaa dadka naafada guud ahaan dhawaan waxaan qabanay maalinta naafada maalinta dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee waliba dhagahala maalintoodii caalamiga ahayd hodeel guuleed baanu ku qabanay madaxweyne ku-xigeenka ka soo qayb galay waxaanu ku qaybinay 300 oo qalab naafo ah tiimamkoodii baanu casunnay way nala shaqeeyaan way noo yimaadaan dhagowlayaashu guddi bay leeyihiin waanu wada shaqeynaa xafladahooda si guud baanu u wada qabanaa wasaaradda way ku xidhan yihiin wasiir buuxa waan ahaa madaxweynaha magacaaba si sharciyan oo magacaaba nin kasta oo madaxweyne magacaabaana waa wasiir buuxa laakiin wasiirku dagaankii uu dhashay markuu tago shaqo ka soo qabto tago dawladnimadii gaarsiiyo dee waa arrin uu ku faani karo dagaanka barina waa Somaliland dad ahaan iyo dal ahaanba waa Somaliland wayna gaadhay xukuumaddu barasaab baa jooga taliye ciidan qaran baa jooga isuduwayaal baa jooga booliiskii baa ka dhisan Maxamed Umar Daariq warbaahinta 5 TV Hargeysa.